xafladani oo lagu taageerayo maamulka bakool sare ayaa lagu qabtay dalka mareykanka gaar ahaan gobolka Texas waxaana ka soo qayb galay qurba joogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka mareykanka jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda maamulka bakool sare ayaa sheegay xafladani in ay ku taageerayaan maamulka bakool sare oo dhawaan lagaga dhawaaqay degmooyinka Ceelbarde Aato iyo Yeed madaxweynaha maamulka bakool sare Maxamed Mashruuc ayaa intay xafladdu socotay khadka telefoonka la soo galiyay asoo kula hadlay boqolaal dhalinyaro oo ka soo jeeda gobolada Bay iyo Bakool xafladda ayaa intay socotay waxa halkaas sidoo kale lagu soo bandhigay kaalimo suugaaneed oo lagu taageerayo maamulka bakool sare ayadoo sidoo kale abwaaniin ka soo jeeda gobolada Soomaaliya ay halkaas ka hadleen شرف البلد قيمته يقدر يكون لها تعين أنا وصل قبلين حفلة قائمة يعني معاه وتبادل إنه أما أنا كنت أقول إنه بكون سيستيف في الصومالية ما لبعض في مسألة حد أي ما تنتهي ما نمط الصومالية يعني طبعا حفلة تصل قبلين هذا ما كلمنا ولا ما تدي ما هكذا هنا عندي عوا في تبادل إنه ماشي سوي مني سري أي نقطة جل حين Taageerada iyo sida taaga bakool state Soomaaliya oo aan maantii state kamid ah state-da ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliya ku dhaqan ama ku dhisan nooca federalism dowladda waxaan caawinaynaa marka barnaamijyo badan waardiin ah fuqaro ay siyaasiyiin badan soo jeedinayaan ciyaaro handooyin gabayaal barnaamij caawa kasta dadku dhaca wada weeraraya ama marinaya qof kasta wuxuu meesha caawa keeni doona laakiin inta waxaan ka codsanahay xogaa ay noo smayno fududaya xafladan ay noo socoto in ay noo smayno oo isqadrino oo qof walba mas'uuliyadda meesha uu qaado oo aan u qeyrayno si uu dadka wax u haya iyo dadka markii ay jooga ay shaqeyn uu si qurba ay uga in aan sharaf leh ay soo smaysan oo ku tagaysan baan ka codsanahay inta kale aashadina ku horeeya wax diiniya maadaama inuu nahay dad islaama diinteenu ay nafays marwalba meel sugan inaan soo sino fikir ilaahay waxaan ku furanaynaa wax diyaar oo kooban oo noo soo siiyo walaalkeen Ustaad Cabdi Ismaan
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم. والله يا الله يمكن أن الناس شاهد شو هذا المسلمين هاي ويا سكوت ماتوا waxa ay islaan isu sheegaan wuxuu leeyahay waa ilaahay xabsigiisa iyo ilaahay xabsado tabada ilaahay waa shay marwalba la isku dadaamo wax walba oo la qaban ayaa kamid ah oo horeysa sidaas bay dadka muslimiin u nahay diinteena saas aan haysaa nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yimid islaan oo la isugu yimaada oo khayr isu sheega ilaa haddii Allah ay jirto malaa'ikta ayaa imanaysa meesha ay joogaan oo halka aha oo ka hor xareynaysa marka waxa ay maartay la khayr iyo midkiina waan isku dadaamina ilaahay ka baxay dadka jooga khaasahan waqtiyada hadda mid iyo munaasabad iyo meelaha ay joogno waa meel aad iyo aad u baahan ilaahay si dheeraad si maartay ilaahay looga tirsan aan jibay soo dhigtay si ka badan ناس اللي لغه هي marka meesha hadda waxaan inta soo tagay kulli waa waxay taas aan filan xafladina way noqon doontaa ayay tahay marka aad la sidii ilaahay yani waxaan wada kulli waa tan sidii kale jazakallahu khair ma tayahay baraka nafar la ina wafro sagana ajir iyo miisaan isa sana oo yeelo waxa qodobkan la lahaa waxa istaala ka boqol sayid Soomaali oo uu noqonayo walaalkeen abwan guleed waxa laga rabaa mashruuc iyo istiaalka iyo jahan ismiska ولا نحن بعد الله شعب الله صومالي يسعى كي يسرق عن متى يلاقوا على بعد
waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyeynayna oo u mahad celinaynaa abwaankeenna qaaliga ahaa mahdi hadliye gagajir oo ku nool waddanka Jarmalka run ahaantii waa abwaanka heesta calanka boqol sare isteedii noo sameeyey mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar labaatanaad uu mahadsan yahay waanu mahad celinaynaa annagoo ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee caawa xafladan isugu imaatay waxaanu mahad celinaynaa abwaanka heesta qaaliga ah ee uu noo sameeyey baan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa waa mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad waxa kale oo mahad celinaynaa kaasi wuxuu ahaa abwaankii noo sameeyey yaase inoo qaadahaya oo caawa runaantii meeshan inoo keenay waa abwaan guuleed oo hortiina idinka muuqda heestu waxay tahay in caawa idin qaadahaya iyo walaalkeen Cumar Dheere falyatafadal abwaan aan DJ u sidii
أي تلي لا كان هيران يا أبو بكر ما تقولوا يا أبو بكر خلاص بيعرف أي حاجة هيران هديك أنا مام والماركة أنا والله غيرنا مام بقصك ببلاش ببلاش أو تمام بدك أنت مام وسكول أفر هذه أقول لك إن تطلع مالين مع حرب سورية لكن أنا أعملها هي جديد وتتربى وكل وهذا وصل إلى عمود يد الاسم بولجاس كبار اللي كانوا دل إلى هذه المدة تتحمل الذي أبسط سوداء ما كان لي أبناتي أو كان سماي لي أبناتي أنا أقول لك حمله وقصة سنين إذا سألت سوق يعني قبل المثالية هي على عبد العزيز إسماعيل أنا طبعا إنجليزي كونسل ستيت وصوماليا المثالية هي وقع عليه دائما على السنين وقع عليهم خطأ والله الفكرة إنه بدأ يستطيع أو الصومالية سميه أما بتاعي على هذا عن كونسل ستيت سميه ومهدي قضية يوم عبد الوالد هذه ودينا هذه مسلمة الصومالية إلا هي يعطي أخلو بيواتي الباب كبر ويدي أجا كثير له ورد عيد بدل على ويدي جالس ويدي إنت تقول عايز عنكوا كين هيا وكذا اللي هيا كان بيا الوين tan iyo intii lagu dhawaaqay maamulka bakool sare ayaa waxa la dhigayay xaflado lagu taageerayo ayadoo laga dhowrsugayo maamulkaasi in uu soo dhiso labada gole ee baarlamaanka iyo wasiirada maamulkaasi ayaa hadda waxa uu ka kooban yahay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waxaana degmooyinkaasi loo sameeyay ciidamo gaar oo suga amnigooda degmooyinka ceel barda aato iyo yeed ayaa kuwa nabdoon oo la isku gudbi karo mana jira wax jidgooyo ah oo aad arkayso inta aad ku guda jirto safarka degmooyinkaasi